dhulka hoyga xamar waa la yaqaan waa dhul dawladeed ma inkirsanin waan ogolnahay mana ahan dhulka dacwadu ka jirto dadkan ayaan in lagu qaldo oo la kala ogaadaan rabnaa dhulka hoyga xamar dhul xiga iyo dhul u dhow midna ma dhulka dacwadu ka socoto waqtigii hore dhulka Soomaaliya dhibaato ka dhacdo maar 30 sano qalalaasahayd ayaa waxa dhacday ii sheegeen dhulkii hoyga iyo xamar dhulal u dhawaa oo iska ciloobay oo dadkii lahaan ama baaliyoobeen ama fogaadeen in lagu fiday 30 sano ama 25 sano markii dhulkii gaarana in wixii ay noqdeen baadi kugu raagtay mulkigaaga aad moodaa markii ka bacdi la isku yimid oo dadkii dhulka lahaa la soo helay oo maaragtay sharcigi wixii dhamaa u yimid oo dhulkii aan gadanayna qoladii muddada dheer deganaa inay yiraahdeen dhulkaas annagaas kale arrinta halka ku bilaabatay horta briefka horeeya kaas weeye dhulka hoyga xamar ee dadku yaqaaniin waa in loo ogaadaa waa dhulka block numberkiisu yahay 32 block numberkiisu waa 32 waxa xiga dhul kale oo niman dijiral ma wadaadid ay lahaan jireen oo 31 ah dhulka shalay la dumiyayna oo dawladdu ay soo dhax gashayna waa dhulka 30aad weeye anigu waxaan ka mid ahay dadka dhulka 30aad dacwadiisa galay oo sheeganaya oo dhulka milkiyadiisa wata oo arinta daba joogaanahay dhulka xiga oo 31 daahina gariiqaanka guud waa iska soo wareejiyay dacwadiisana maxkamadda ay taala asagana fulintiisa mar dhow baa la sugaya waxaan cabasho ka nahay dhibaato naga haysa dhul aan leenahay oo anagu milkiyadiisa aan leenahay oo ay masabiteen dad le waxaan nahay hoyga xamar iskuulka anagu ma haysano iskuulku waa iskuul yaqaan oo caalam muctarifa laamigo bari makaya dhul ay ku faafeen oo ay qabsadeen nimanka haysta iskuulka ayaa nala ku haystaa dokumentigiisa haysanaa waa soo gadanay sifa sharciyan ku soo gadanay milkiyadiisa anaga leh waxaan marnay dawladda laamaheeda dacwadaan marnay waa la baaray wasaaraddan u tagnay waxbarashada wasaaradda waxa dhulka malihi gariiqaanka ayay u ridiyeen oo yiraahdeen asaga noo doodaya gariiqaankuna waa noo xukumay min hadduu process ku jira waxaan rabnaa inaan u cadeyno dadka in aanan lahayn documentina u haysan iskuulka hoyga xamar ragga maamulayaasha ka ah oo uu ku yahay Abdiraxmaan Dhigay wuxuu ku fidsaday dhul lambarkiisu yahay 31 iyo 30 labadii sano ee u dambeysay annaga aslanba ma haysano iskuulka iyo dhulka uu ku fadhiyo iskuulka dhulka uu ku fadhiyo naqshada wuxuu ka yahay 32 mitir square-kiisu waa 4012 waxaan dadka u cadeynaynaa iyo dawladda iyo mas'uuliyiinta sharafta leh waxaan u cadeynaynaa saxaafadda in aanan duulaan ku ahaan sheeganeen iskuulka hoyga xamar odayaal haddaan nahay ku gacan siimayno in dad ay mulkiyad intay u sheegtaan aan waxba ka jirin ay yiraahdaan anaga leh ku gacan siimayno dulmina raali ugu noqon mayno in ayaga la dulmiyo oo xuquuqdoodii ayagoo wato loo soo xukumay masana la yiraahdo intii la fulin waayo oo fulintii aan lagu dhaqmin oo sharcigii aan la ilaalin oo taliyihii goobjoog ka yahay oo asagii dadkii isku baneeyay maanta wixii gaare meeshaas haddaan taliyuhu inta mas'uuliyadeeda loo laabanayo haddaan taliyuhu wax ka qaban wixii meesha ka dhacaysa